dowladda Albania ayaa Iiraan ku eedeysay inay ku soo qaaday wararkii labaad oo dhanka internetka. Eedeyntan ayaa daba socota cunaqabatayn uu Maraykanku saaray wasaaradda amniga iyo sirdoonka Iiraan, taasoo uu ku sababeeyay weerar dhanka internetka oo bishii Julaay lagu qaaday hay'adaha isgaarsiinta iyo xarumaha dowladda ee Albania, isla markaana khadadka mas'uuliyiinta qaarkood muddo hawada laga saaray. dowladda Albania ayaa Iiraan ku eedeynaysa inay ka dambayso weerar labaad oo dhanka internetka maalmo kadib markii ay xiriirka diblomaasiyadda u jartay Iiraan, taasoo ka dhalatay weerarkii lagu qaaday nidaamkeeda dijitaalka bishii Julaay. Ra'iisul wasaaraha Albania Ed Rama ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in weerar kale oo dhanka internetka ay geysteen isla kuwii horay ugu soo gardarooday oo uu Iiraan ula jeeday. Ra'iisul wasaaraha Albania ayaa sheegay in la duubay weeraradii lagu soo qaaday, wuxuuna intaas ku daray in Albania ay la shaqaynayso Maraykanka iyo dalalka NATO si ay u kordhiso tallaabooyinkeeda isdifaaca. eedeymahan dambe ee ay Albania u soo jeedisay Iiraan waxay u badan tahay inay sare u qaadi doonto xiisadda u dhaxaysa dalalka Albania iyo Iiraan. Jimcihii la soo dhaafay Maraykanka ayaa cunaqabatayn ku soo rogay wasaaradda sirdoonka iyo amniga Iiraan, wuxuuna wasaaraddaas ku tilmaamay inay tahay hay'adda kacaanka wadaadada Iiraan ugu qaabilsan weerarada internetka ee curyaaminta. Iiraan ayaa sacanbaraysay tallaabadan, waxayna ku eedeysay Maraykanku inuu abaabulayo burbur diblomaasiyadeed isla markaana uu doonayo inuu iska horkeeno Iiraan iyo Albania. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Nasir Kanani oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi taageerada degdega ee Maraykanku u fidiyey eedeymaha beenta ee dowladda Albania waxay ku tusinaysaa in naqshqadeeyuhu aanu ahayn Albania balse uu yahay Maraykanka. hadalka afhayeenka ayaa ka dhigan in arrimahan oo dhan uu ka shaqaynayo Maraykanku, isagoo arrimahan ka fulinaya gudaha dalka Albania. Jimcadii hore ra'iisul wasaaraha Albania Ed Rama ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jaray Iiraan kadib weeraro interneta oo isxixigay oo soo taxnaa ilaa iyo bishii Julaay ee la soo dhaafay. sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyey inay hayaan baaritaanno ay sameeyeen iyo caddaymo aan la dafiri karin in Iiraan ay ka dambaysay weerarada dhanka internetka ee Albania lagu soo qaaday. weerarada Albania lagu qaaday ayaa lagu sheegay inay ahaayeen kuwo lagu doonayay in lagu curyaamiyo adeegyada bulshada iyo helitaanka xogta iyo nidaamka isgaarsiinta dowladda, balse ugu dambayntii la fashiliyay arrimahaas. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Nasir Kanani ayaa sheegay in habdhaqanka Albania uu ka soo horjeedo sharciga caalamiga iyo axdiga Vienna ee xuquuqaha diblomaasiyadda. khilaafka iyo eedeymaha labadan waddan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka Albania uu martigelinayo shirweynaha koox mucaarad ah oo reer Iiraan ah, shirkaas oo socon doona muddo 2 maalmood ah. shirkaas oo ay soo qabanqaabiyeen kooxda mucaaradka ku ah Iiraan ee la yiraahdo MEK, kuwaasoo Albania ay u ogolaatay inay dalkeeda ku shiraan kadib codsi uga yimid Maraykanka. shirka Albania ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira hanjabaado argagixiso oo aan la cayimin. Dr. Mentor oo ah aqoon-yahan dalka Albania u dhashay kuna takhasusay siyaasadda caalamiga ah ayaa u digay dalkiisa Albania, waxaana uu yidhi sidan: Albania waa inay ka fogaato inay wakiil u noqoto loolanka quwadaha gobolka iyo dunidaba, ma aha inay dhex gasho colaad caalami ah oo ay ku lug leeyihiin dalal kale. Albania iyo Maraykanku waxay caddeeyeen inay si shaki la'aan ah Iiraan uga dambaysay dhaqdhaqaaqyadan saybraaniga ah ee aan xadka lahayn. dabcan Albania ma laha awood ay ku dabagalaan oo ay ku caddeeyaan dhaqdhaqaaqyadan weerarada internetka oo kale ah. Albania waxa ay ku tiirsan tahay macluumaadka ay bixiyaan Maraykanka, UK iyo NATO. ururka MEK dowladda Iiraan waxay ku calaamadisay oo u aqoonsatay inay tahay koox argagixiso ah. kooxdan sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ku dartay liiska ururada argagixisada ilaa sanadii 2012. inkastoo xiriirka Albania iyo Iiraan uusan weligiis ahayn mid wanaagsan, Dr. Mentor waxa uu sheegay in xiriirku uu sii xumaaday tan iyo markii Albania ay martigelisay kooxda mucaaradka Iiraan ku ah ee MEK.
albaniya waxay sidoo kale dhexda ka gashay loolanka ballaaran ee u dhexeeya ruushka iyo iiraan oo dhinac ah iyo maraykanka oo dhinac kale ah. dr mentor oo arrintan ka sii hadlaya wuxuu yidhi sidan: albaniya waa inay ka fogaato inay wakiil u noqoto garab ka mid ah loolanka awoodaha ee bannaankeeda ka socda oo ay ku lug leeyihiin dalal kale, taasoo ka dhigan inuu dr mentor ka digayo in albaniya ay tahay waddan yar oo u nugul wax kasta. maraykanku wuxuu horay kooxda meeg ugu aqoonsaday urur argagixiso sababtoo ah waxay dileen dhowr askari oo maraykan ah oo ka shaqaynayay qandaraasyada difaaca ee iiraan xilligii xukunkii shaah. ugu dambayntii maraykanka ayaa xiriir qarsoodi ah la yeeshay hoggaanka ururka kooxda meeg. siyaasiyiinta maraykanka ee ka kala tirsan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa iyagu u arka kooxdan meeg inay tahay aalad waxtar u leh oo ka dhan ah dowladda iiraan ee hadda jirta. balse sannaddii 2013 ayaa waxaa kordhay cadaawadda looga hayo ururka meeg gudaha ciraaq, iyadoo markaas ay aad u xoogaysteen saaxiibbada iiraan ee gudaha ciraaq. isla sannadkaas maraykanku waxa uu albaniya ku cadaadiyey inay martigeliyaan in ka badan 4,000 oo xubnood oo ka tirsan kooxdaas, markaasoo ay dowladdu maraykanku ku tilmaantay koox mucaarad ah oo iiraaniyiina oo dibad joog ah, taasoo keentay inay iiraan ka xanaaqdo tallaabada albaniya. kadib dilkii jenaraal qaasim suleymaan oo lagu dilay gacanta maamulkii trump 2020, hogaamiyaha awoodda badan ee iiraan cali khamane waxa uu yidhi: waxaa jira dal aad u yar oo yurub ah laakiin shar badan. waxay canaasiir u yihiin maraykan oo wata qaar ka mid ah khaa'inul waddan iiraaniyiin ah. waxay isugu tageen shirqool ka dhan ah jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan. wakhtigaas hadalladaas waxaa loo fasiray inuu ula jeeday albaniya oo martigelisay kooxda meeg. taasina waxay keentay in dowladdii albaniya ee wakhtigaasi ay erido 2 diblomaasi oo iiraaniyiin ah. sannaddii 2018 albaniya waxay sidoo kale eriday safiirkii iiraan, kaasoo ay ku eedaysay inuu waxyeelaynayay ammaankeeda qaran oo uu abaabulayay dilal. iiraanna waxay ku eedaysay dalka albaniya inuu haysto cadaadis uga imanaya maraykanka iyo israa'iil.